سلام يا مرتدى شرفت لحفلة كسر قيب كشي وحان سيجار حان والسلام يا معمول قوان الرياضة سياسينتا ويهندا بلنيرادا هوينك شرفت له فنانينتا صحفيينتا دمانتينا وحان يكون سلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرلبات وحان ربا إنه أمهات نقو انتي سؤال بالشيء وقت هذا كله مستي حفلة قيمة غاية iyo intii soo ajibtay inay ka soo galaan xafladan waxaan leeyahay jasaakumullahu khayran jasiila walaalayaal caluule raascasayr state of Somalia madaxweynaheeda مدير إنجنير فارح محمود يوسف دحجوج قولي وزير هذا يضمان شعبك غير راس عصير صلان كدب وحا شرف إياه إنان صوريني كسيو أو إني كور بحيو ومحي راس عصير محا الله أساسي سبب هذا لي ومحي هميلوين كيسو محو قبطي يباقى نجيدنا يو ومدى الصومالية الأمان مروين يو مدنيال معمول راس عصير وحال أساسي 18 أبريل لبضا كونيو كويو طبانكا وحانا لو أساسي مقالة علولة كذب ولا تشيو بدن وأيشين دمان بيلها دقان كراس عصير إيضا لقبت شرر بدن أو قاركو لوقبت الدبادة سيدة سويدن شركي قدامينا waxaa lagu qabtay 13 bishii 13 ilaa 17 bishii saddexaad magaalada Baargal waxaa la qiimeeyay xaaladda mandaqada raas casayr ee ka tirsaneyd gobolka bari ay ku jirto oo noqotay mid aan loo dulqaadan karin sida awgeed ayaa waxaa la isla gartay in la yeeleelo maamul goboleedka Raascasayr state maamul goboleedka Raascasayr state wuxuu ka kooban yahay laba gobol oo la kala yiraahdo Binna iyo Boolimo Binna waxa magaalo ma ah Baargal Boolimogna waxa ah Caluule جغرافيا وحو دعا جيسكا أفريكا لبادا بضوط بديارة عدميد iyo badweynta Hindiya maamul goboleedka Raascasayr waxa ilaahay ku manaystay khayraad fara badan oo ay ka mid yihiin xoolaha nool kalluunka beeraha macdanta iyo deegaan ku habboon dalxiiska beeyada iyo maydiga isku mid hadba qof soo yaqaan walaalayaal hadda Raascasayr state wuxuu dhacaa mandaqad muhiim ah sida kanaal Suez iyo Panama state kanaalka Panama oo Amerika ay marto ganacsiga adduunka oo isaga goosha haddaba waa maxay himilooyinka Raascasayr state walaalayaal waxa kamid ah inuu sameeyo maamul tayaysan deegaanka xukunkana loo dhiibo dad aqoon leh oo lagu soo xusho maxaa taqaan nod yaa taqaan in la tashado beelaha deegaanka dega taradan laga qaybgeliyo iyagana loo dhiibo
waxaan ognahay walaalayaal sanadahan inay ummadda Soomaaliyeed ay halakaysay waxa uu dhaho qurcad badeed maamul goboleedka Xaflada wuxuu la dagaalamayaa qurcad badeeda bad iyo berri beeray joogtada oo ka carabsiya dhulka wuxuu sameynayaa isbitaallo tayaysan sidii hooyada iyo dhallaanku u helaan caafimaad waafiya oo ay uga kalsoonaadaan ama uga kaaftoomaaneen safar dheer ay ku tagi jireen boosaaso qaarkood ay ku dhiman jireen laamiga iyo la sii wado wuxuu sameynayaa iskuulo tayo leh maadaama ay aqoontu tahay miftaaxa nolosha